asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wacan oo wanaagsan mar kale ardada ku xiran channelkeenan Bara Luqada Academy, mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeenan maantay waa cashirkeenii 17aad ee barashada luqadda Englishka. Balse ka hor inta aanan u gudagelin cashirkeenan waxaan rabaa inaan waxoogaa halkan aan ka iraahdo channelkeenan Bara Luqada Academy. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ardada ku xiran channelkeenan Bara Luqada Academy. Runtii waad ku mahadsantihiin subscriberska. Waxa uu marayaa 27.2k annagoo kaliya aan soo gelinay 16 ah. Insha Allah waan idinka raali gelinayaa habsaankii ama kala go'ga iyo casharadeena ku yimid. Waxaanan ku dadaali doonaa haddii Allah awood leh uu ka raali noqdo in casharadeena ay noo noqdaan kuwa taxana ah oo intaa ka sii badan oo ka faa'iido badan. Qofkii ku cusub oo kale channelkana waan soo dhaweynaynaa. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka waa channelkaagii ku soo dhawow inoo subscribe garee. Sidoo kalena casharadii hore ee ku dhaafay waxaad ka heli kartaa halkan playlistiga ah ayaad ku dhufanaysaa channelka markaad soo gashid Bara Luqada Academy, oo halkan waxaa ku qoran free English course. So marka halkan ayaad soo gelaysaa free English course ayaad hore u soo gelaysaa. Marka sidaas ugu dhufatid dabcan waxaad arkaysaa casharadii oo tixan ayaa halkan kugu soo baxaya. qaybta fiiri waa from cashirka koowaad, labaad, saddexaad, afraad, shanaad, lixaad, sidaas u soconaysaa. halkanna waxa weeyaan waa qoraalka halkan ku qoran waa akademiyada ayuu ku saabsan yahay. Brief information waa warbixin yar oo kooban akademiyada ku saabsan. Akademiyada wuxuu ku leedahay halkan please give your support this channelkan taageeradaada sidee ku taageeraysaa, maxaad ku taageeraysaa just one click of subscribe kaaga ah weeyaan. sidoo kale halkan waxaa ku qoran new video every Thursday, maalin kasto isbuuc dhamaadka maalinka jimcaha maalinka ka soo horeysa Thursday-ga ama Khamiista inay hal video cusub ay ardada u soo kordhiso ay ka faa'iidaan. sidoo kale halkan isla akademiyada qaybteeda koorsooyinka ayay waxa weeye ku saabsan tahay warbixintan. Our available courses weeyaan koorsooyinkeena la heli karo availability-ga ama available-ka ah waa elementary online class iyo intermediate online class iyo advanced online class. sidoo kale halkan waxaa kugu qoran WhatsApp numberkayga. wixii faahfaahin intaa ka dheeri ah ayaad igala soo xiriiri kartaa. sidaas oo kale waxaan muuqaalkan qaybtiisa commentiga ugu koowaad ama ugu horeeyo iyo muuqaal kastaba aan idiin soo dhigayaa WhatsApp group aad ku soo biiri kartid. wixii warbixin information oo xagga akademiyada online-ka ku saabsan ayaan soo dhigayaa. isla muuqaalkan qaybtiisa commentiga koowaad ayaadna ka helaysaa WhatsApp groupkaasi, waadna ku soo biiri kartaa, waad soo join garayn kartaa. intaa aan uga baxo wixii hordhaca ah, cashirkeena waxa weeyaan waa questions su'aalo iyo answers jawaabo. questions waa maxay? su'aalo. answers waa jawaabo. qaybtan wixii su'aalo ah ayaa noogu qoran midabka balaaga ah, qaybtan midabka buluuga ahna waxa weeye waa jawaabaha weeyaan. soo marka su'aal kasta jawaabteeda waa ay ka soo horjeedaa oo ay ku beegan tahay ama opposite ayay ku tahayba. okay, su'aasha ugu horeysa how are you doing? how are you doing waxa ay la macno tahay how are you di aynu naqaanay ee caadiga ahayd, iyadoo informal ah waaye. how are you laakiin waa formal English waaye. formalka waa hadalka caadiga ah, laakiin informalka waa hadal suuqeedka loo yaqaano. soo marka how are you doing sidee tahay oo ah hadal suuqeed ah waaye. okay, how are you doing sidee u sameynaysaa waa laakiin markii caadi loo fasiro, laakiin informal waaye oo sidee tahay markii la dhahayo luqadda Englishka. hadda waa isla fahnaan u maleynayaa how are you doing waxa laga wado. how are you doing sidee tahay. I am good waan wanaagsanahay. I am aniga good waan wanaagsanahay. thanks mahadsanid. I am good thanks waan wanaagsanahay mahadsanid. what is your name magaca. what is your name magaca. my name magacayga. my name magacaygu is waa Faadma. Faadimo weeye. my name is Faadma magacaygu waa Faadumo. okay, su-aasha xigta how old are you meeqa sane ayaad jirtaa. markaad dhehaysid luqadda Englishka su-aashan ayaad isticmaalaysaa ama jumladan ayaad isticmaalaysaa oo waxaad leedahay how old are you meeqa sane jir ayaad tahay ama imise sane ayaad jirtaa, intee sane ayaad jirtaa. I am anigu 25 years old. da'daydu waa 25 sane.
25 sano jir ayaan ahay weeye. I am 25 years old. haddaad adigu tahay 15 sano jir, haddaad tahay 20 jir, haddaad tahay 18 jir, tiradan unbaad u bedelaysaa. meeshaan 25 ay ku qoran tahay unbaad bedelaysaa. I am 18 years old, I am 20 years old, I am 7 years old, I am 10 years old, like that. Okay, su-aasha xigta, what do you do? maxaad qabanaysaa ama maxaad samaysaa? What do you do? maxaad qabataa ama maxaad samaysaa? Okay, I am anigu a teacher, macalin ayaan ahay. maxaa qabataa soo lama dhihin? jawaabtu way iska caddahay oo wuxuu yidhi I am a teacher, aniga macalin ayaan ahay. Teacher, macalin weeye. Okay, su-aasha xigtahay, are you married? ma guursatay? Are you adiga married? ma guursatay? Married waa guurkii weeye. Are you married? ma guursatay baa la weydiiyey su-aal ah. Yes, ha. I am married. Ha, waan guursaday. Yes, I am married. Ha, waan guursaday. Do you speak English? English ma ku hadashaa? Do you speak English? English ma ku hadashaa? Yes, ha. A little bit. A little bit. waxoogaa ah. Yes, ha. A little bit. wax yar ayaan ku hadlaa. Little bit waa wax yar. Where do you live? halkeed ku nooshahay? Where halkeed do you live aad ku nooshahay? Where do you live waa maxay? halkeed ku nooshahay ayaa laga wadaa. jumladan maxaa laga wadaa? Where do you live macnaheedu af Soomaali ah waxa weeyaan where do you live? halkeed ku nooshahay. markaad rabtid qof inaad ku dhahdid luqadda Ingiriiska waxaad leedahay where do you live? halkeed ku nooshahay. I live in waxaan ku noolahay. I live waxaan ku noolahay dheh in London, magaalada London ayaan ku noolahay. London ayaan ku noolahay. marka magaalada adigu aad ku nooshahay unbaad halkan ku bedelanaysaa oo hadda London ay noogu qoran tahay. I live in Muqdisho, I live in Galkayo, I live in Baydawa, I live in Hargeysa, like that. Okay, su-aasha xigta, what time is it? Okay, su-aasha maxaa laga wadaa marka? What time is it waxa waaye what time is it? meeqa saac? What time is it? waqtigu waa intee? What time is it? waa meeqa saac markaa leedahay. meeqa saac weeye. Is it 3 o'clock? waa 3. It is waa 3 o'clock. 3 weeye. Are you hungry? adigu ma gaajeysan tahay ama ma baahan tahay markaad leedahay. Are you hungry? Hungry waa gaajo ama baahi. Are you hungry? adigu ma gaajeysan tahay ama ma baahan tahay. Yes, ha. I am aniga starving. I am starving. ereyga starving wuxuuba kasii xag jiraa ama uu kasii xeel dheer yahayba aan dhahna ereyga hungry gaajo. gaajo waa iska gaajo caadi ah, laakiin starving waa gaajo zaa'id ah ama macluul xataa waa mararka qaarkood waa loo isticmaalaa marka meelaha dee abaaraha ay ka jirta luqadda Ingiriiska. ereygan starving macluul ayay u isticmaashaa. anaga hadda laakiin gaajo zaa'id ama gaajo daran ayaan u isticmaalaynaa. Yes, I am starving. ha, waan gaajeysanahay oo gaajo zaa'id ayay haysaa. How was your day? maalinkaaga sidee ahayd? How sidee bay was ahayd your day maalinkaaga? It was waxay ahayd great, mid hagaagsan oo wanaagsan. Thanks, mahadsanid. It was great, waxay ahayd mid hagaagsan. Great waa mid hagaagsan. Thanks, mahadsanid. Do you have ma leedahay kids caruur? Do you have ma leedahay? Do you have ma leedahay kids caruur? Yes, ha. I have waan leeyahay ama waan haystaa 2 kids. 2 caruur ayaan leeyahay. 2 kids, 2 caruur ah ayaan leeyahay. Where are you going? halkeed u socotaa? halkeed aadaysaa? Where are you going? halkeed u socotaa? halkeed aadaysaa? xageed u socotaa? I am aniga going to work. waxaan aadayaa ama aan u socdaa shaqo. I am going to work. waxaan aadayaa ama aan u socdaa dheh shaqo ayaan aadayaa ama aan u socdaa. What do you want? maxaad rabtaa? What do you want? maxaad rabtaa ama maxaad doonaysaa? What do you want? maxaad rabtaa ama maxaad doonaysaa markaad dhehaysid I just want? hadda waxaan rabaa some coffee. waxoogaa kafey ah. wax yar oo kafey ayaan rabaa. Some waa xoogaa, coffee-na waa coffee. aniga just hadda want waxaan doonayaa some xoogaa coffee oo coffee ah. dabcan waa qof daalay oo
oo raba inuu haddana sii shaqeeyo laakiin xoogaa caajis iyo boring iyo wuxuu dareemayaa iyo hurdo iyo marka shaqadii ayuu rabaa inuu mar kale uu sii wado uu sii dardargeliyo uu sii xoojiyo. Marka I just want some coffee, aniga waxaan rabaa xoogaa coffee ayaan rabaa haddeer. What are you doing now? Hadda maxaad samaynaysaa? What are you doing now? Hadda maxaad samaynaysaa? What maxaad are you adiga doing aad samaynaysaa now hadda? I am aniga answering to you, aniga adiga ayaan kuu jawaabayaa. I am aniga answering aan kuu jawaabayaa to you adiga. I am answering anigu waan jawaabayaa dheh, to you adiga ayaan kuu jawaabayaa. Who is that? Waa kuma qofkaas. Marka that marna kaas waa loo isticmaalaa, taasna waa loo isticmaalaa. Marka kaas iyo taas maxaa kala micnaha kala xadeynaya? Marka waxaa kala xadeynaya waxa la tilmaamaya. Waxa la tilmaamaya hadday yihiin wax markaasi dhadig ah, tusaale ahaan qof dumar ah hadday tahay qofta markaa la tilmaamaya waxaa la isticmaalayaa taas ayaa lagu micneynayaa. So marka who is that? waa tuma qoftaasi. Marka that waa wax markaasi tilmaan ayay ku sheegaysaa. That waana shay kaa fog markaasi oo hal shay ah. Who is that? waa tuma qoftaas. Marka waa qof markaasi oo hal qof oo haddana kaa fog. That is taasina taasi. My sister waa walaashay. Sister waa walaashaada. Sister walaal oo laakiin qof dumar ah, qofta walaashaada walaashay waa. That is my sister, taas waa walaashay. Who is this? waa kuma qofkani. Who is this? waa kuma qofkani. Hadda this tanina lama dhihi karo kani aa loo dhahaya because iyadana waxaa xukumaysa this tan hadda waxaa xukumaysa oo micnaheeda rogaysa hadba ama tan ka dhigaysa ama kan ka dhigaya qofka la tilmaamaya. Hadda qofka aan rabno inaan tilmaano hadduu qof rag yahay kan ayaa lagu sheegayaa, kan ayaa la leeyahay this kan. Hadduu waxa la tilmaamaya ay tahay qof dumarna this tan ayaan leenahay. So marka hadda su-aasha waxay tahay who is this? waa kuma qofkani. Who is this? waa kuma qofkani. This is kani. This is kani. My brother. My brother waa walaalkay. Brother waa walaalkaaga oo wiilka ah. Sisterna waa walaashay. Brother walaalkay. Okay, su-aasha ugu dambeysa ee casharkeeni ayaan isla soo gaarnay ardayahay. Waxay leedahay are you okay? Adigu okay ma tahay? Waa isdhaana luqadda Soomaaliga ayaaba aad u isticmaalnaa. Okay aan ahay maanta okay ma ihi. Marka okay ma tahay oo waxa weeye ma wanaagsan tahay unba weeyaan. Are you okay? Adiga okay miyaa tahay? Adiga okay ma tahay yani ma wanaagsan tahay? Yes ha, I am aniga. Meeshaan xogaa qalad baa dhacay oo la dhaho typing error ayaa la dhahaa. Markaan casharka qorayay ayaan qalday oo eedaan hadda meesha taala inay halkaan emta taala ay timaaday ahayd oo emtaan ee dambeyso laakiin sidan oo kale inaan u qoray ahayd I am ta oo kale saana ahayd. So marka qaladkaas waa uu dhacay, wuxuuna ku dhacay typing error allaha. Markaan qoraalka cashirka aan soo qorayay ayaa qaladkaasu iga dhacay. Cafwan marka hadda kuusii sheegaya oo ogow. Yes ha, I am aniga fine waan fiicanahay. Thanks mahadsanid. Thanks waa maxay? Mahadsanid. Aniguna waxaan idin leeyahay hadda cashirka idinka maadaama aad dhamaadka ama gabagabada halkan isla soo gaarnay. Thank you. waad mahadsantihiin. Ereyga you-na hore waa idinkugu soo sheegayo. Ereyga you waxaa loo isticmaalaa hal qof iyo dad badan, maadaama hadda idinka dad badan aad tihiin oo aad 27,000 qof aad channelka uga xiran tihiin. aan rajeynayno insha Allah waqti dhow inuu channelkan horay u sii socdo. Marka waxaan leeyahay mar kale ardaydeediyoy thank you, mahadsanidin, waad mahadsantihiin. guuleysta guud iyo gobonimo idin rajeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.